السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوا ساعة الله والسلام. يفضل مرسول بوقت سبسكرايب شار سوكر النصار شعبك محل دوغنا كوكنا تراست والد حوجة waliba qaybta historyga yesterday eeninkan sameynay waxa uu ku joogaan qaybta 19.5 ka ayuu ka bilaabmaa ilaa 2.8 kaas. So total hadii la isu geeyo waxay noqonaysaa lacag gaaraysa 3 USDT ama 4 USDT. So if you can make every day 50 USDT, wallahi you can earn more monthly. Okay, bishii macnaha hadii imka every day macnaha sameynayso 3 USDT ama 4 ama 50 USDT ama 40 USDT monthly inta macnaha sameyn karaysa lacag lama eego lacagta halkan eegan waa $3 waa 2 maxay taraysaa waa 2.4 maxay taraysaa 2.4 kuma xiiqi karo. So waxa la yiri wax kasto macnaha la isku magaranaysa soo taga wax badan bay noqdaan magarad. So marka Shalwa Karim adigu hadii aragtiraadin ka weyn 2.2 urursanay intaas oo 2.2 hal maalin waxa isku noqonayaan 50 USDT. Okay, website ka soo jeedo waxaan ku meesha ka qortay register waan taabanayo muuqaalkii Binance-ga waa kan ay ga raalaysan boqolkiiba waa diyaar waxa soconaya garanaysaa 10 minute soconaya. Okay, tawaskii ma leh. So marka Shalwa Karim 10 minute waa faahfaahsan boqolkiiba wadii soo gelin Shalwa Karim ma dhigto ma wax ka dhiman ma jiraan wixii waan edit waan codskiisa saaray waan soo hagaajiyay iyadoo shaqo kaaga muuqaalkaas. Okay, meeshan email baan gashan doonaa soo kale password kale baan doonaa kadibna repeat password baan leeyahay security password baan gashan doonaa inta markaan sameeyo invitation code si toosan leeyahay WhatsApp iyo waxaan iska buusaa free file code kan si ay soo raacsan linkigaas kadibna insha Allah waxa sameynaysaa meesha ku qoran tahay email-kaaga waa soo gashanaysaa marka video soo gelinaysaa kana password-kaaga halkana free file code soo gelinaysaa kadibna login baad leedahay inta kadib qaabka insha Allah ugu soo bixi doonaa halkan Shalwa Karim quantity figure waxaan meesha ka qabsan kartaa qaybtan qaybta koobaad iyo qaybta labaad waxa la gashanayay fadhi waxa ka helisay. So marka Shalwa Karim taskis app window notice waxa soo qoraya qaybta waxa weeyaan FIB3 soma jadid FIB1 waxa lagu furtaa macnaha daily revenue ka soo gali kara waxa weeyaan qaybtan waa USDT. Okay, qof FIB1 wuxuu ka sameynayaa every day soo jeedo 30 USDT unlock-kiisuna waa 15 USD. qaybta labaad qofka sheeko tumbo garanaysaa gashanaya every day wuxuu ka sameeyaa 15 USD. qaybta saddexaad qofka wuxuu gashanaya 250 every day wuxuu ka sameeyaa 15 USDT. qaybta 550 250 USDT. So marka Shalwa Karim almost waxaan taabanaa meesha ka qoran tahay home ko kale kadibna insha Allah meesha ka qoran tahay recharge baad taabanaysaa yaad markuu taabatid transfer smart account iyo transfer flex account ay kale. So marka kana kala iska taabanaysaa kadibna insha Allah soo koob garsanaysaa koobi direct ma soo koob garsanaysaa kadibna transfer baad soo aaday inta kadib waxaan imanaya qaybtan USDT-ga waxaan ku dhufanaya qaybta USDT kadibna soo dhamaan leeyahay kadibna paste kadibna 15 USD ama whatever ay qiimad garanaysaa gashan karto. So marka confirm oo kala leedahay confirm marka tiraado option ku soo baxay confirm ba taabanaysaa waxaad ku garsanaysaa address-ka ma sida soo ku garsanaysaa laabanaysaa website-ka ku laabanaysaa kadibna insha Allah marka website ku laabato waxay imanaysaa marka qaybtii quantify kadibna option ay ku qoran tahay start quantify of FIB1 ayaa taabanaysaa kadibna sidan insha Allah kugu furmi doona qaabka markuu furmo 3 USDT waxaan lahayn ka qaadanaa meesha inta kadib insha Allah waan soo bixi doonaa markaan soo baxno waxaan taas u imanaynaa meesha ku qoran tahay repurchase baan taabanaa kadib markaan waxaan gelinaa withdrawal amount oo $3 halkana security password kana walad address-keena ku soo xidhanaa halkana walad address-ka paste ku leedahay halkana password ku gashanaysaa dib save marka dhahdo si automatically meeshan password ku gashanaysaa kadib hadaysa meesha ku qoran tahay recharge successfully ama submit successfully kadibna withdraw ku sameeyay Shalwa Karim 3 USDT iyo wixii garanaysaa ka baxay insha Allah taasi ku soo gaari doonaan. Assalaamu calaykum.